komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa munaasabad ballaaran ku daafuray hawsha qaybinta kaadhadhka codbixiyaha doorashada oo lagu wado in maalinta Sabtida ay nagu soo foolkale ay si rasmi ah uga bilaabanto gobolkani Togdheer. munaasabadani lagu iba furaya hawsha qaybinta kaadhadhka codbixiyaha doorashooyinka oo si heer sare ah uga qabsoontay hotel Kaadh ee magaalada Burco ayaa ay ka soo qayb galeen xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo iyagu gardaadinaya hawshan madaxda asxaabta qaranka xubno ka socday golaha wasiirada Somaliland iyo qaar kamid ah ururada maxalliga ee ka qayb qaata doorashooyinka oo ay ugu horeyso dalada ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf. sidoo kale waxa ayna qayb ka ahaa xafladani ilyartu isqabatay cuqaal salaadiin waxgarad dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshadani ku nool gobolkani Togdheer. waa kuwan qaar ka mid ah saraakiisha komishanka doorashooyinka qaranka iyo maamulka gobolka Togdheer kuwaasi oo dhamaantood fariin isku mid ah u diray bulshada reer Togdheer iyagoo ugu baaqay in ay u soo baxaan qaadashada kaadhka codbixiyaha doorashada oo lagu wado in ay ka bilaabanto maalinta Sabtida. midda ugu muhiimsan aan rabo inaan idin sheego waxa weeye maanta maadaama aynu halkan kaadh qaybin u joogno marka ugu horeysa saaxadan aynu isugu nimi waxa weeye waxaynu kaga hadlaynaa waa kaadh qaybin wax kale ma aha arrimaha siyaasaddu wayna ka xidhan yihiin waxaan halka jeclahay inaan uga mahadnaqo oo mahad weyn u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaanu haddaan nahay komishanka uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee daacadda ahayd ee wanaagsanayd ee uu noola shaqeeyey oo uu dhabarka u ritay wixii kharaj ahaa ee ku baxayay kaadh qaybinta iyo doorashada. komishku formal u qaatay gobolada oo dhan baa lagu abalgareynaya midna waxa weeye halkana dadkii isdiiwaan galiyay ka guure meel kale noogu rara taana asubina ka faa'iideysta waqtiga haysataan oo kaadhkiina si fiican u qaata beritoole haddii la yiraahdo 213 goobood oo ka mid ah gobolka Togdheer ayaa hawsha loo kala dirayaa oo Sabtida ka bilaabaysa. waxa kaloo la howlgeliyay 800 oo qof oo shaqaale ah oo ka shaqeyn doona kaadh qaybinta gobolka Togdheer. waxa kaloo la howlgeliyay 160 gaari oo goob walba geyn doona qalabkii loogu talagalay in lagu bixiyo. waxa magaalada Burco gudaheeda waxa ka furnaan doonta 550 goobood oo kaadhadhka lagu qaybinayo. reer Togdheer xusuusiyo inaan la ilaawin kalamkii lagu qaybinay reer Togdheer oo carruurta imaka aan u oganay inay hawlwadeenna ka noqdaan hawshan kaadh qaybinta kii lagu yaqiinay gobolka ee hadday diiwaangelintii tahay iyo haddii hawlihii ka horreeyay ay tahayba laga bartay in carruurta lagu maamuuso. waa nasiib darro haddii adigoo muwaadina oo reer Somaliland qofkii aad jecelayd aad dooranaysay waxaad ku doorato aad weydo soo nasiib darro ma tiradii Togdheer iska diiwaangelisay waynu garanaynaa tiradaa waa inaynu maantana qaadano. dadweynaha reer gobolka Togdheer waxaan ugu baaqayaa in kaadhka la qaato. labadii gobol ee hore si wanaagsan bay uga dhacday kana uu ka sii wanaagsanaan doonaa. waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa inamada dhalinyarada ah ee ku dhawaadka ee qaadaya kaadhadhka iyo ciidamada qaranka ee 450 ka kooban inay goobahaasi mas'uul ka yihiin. ugu dambeyn waxa halkaasi hadalka iska daba maray wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare gudoomiyaha ahna musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga muxaafidka ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka ee Ucid Bashiir Xasan Xamari iyo Barawaani oo ku hadlayay afka hay'adda Sonsaf kuwaasi oo dhamaantood si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay hawshani qaybinta kaadhadhka codbixiyuhu u leedahay qarankani jamhuuriyadda Somaliland. kasta waa in qaata qof kasta waa in footeeyo waayo wax xuquuq wata la inoo sheegay waa xuquuqdaada inaad dawladdaada aad dhisato wax xuquuqdaada dawlad la'aan dawladda kaliya waxaad ku eegtaa warba halkan Burco markaynu ka soo galayno
laynaga qaaday bil baa laynaga qaaday waa layna eegaya askartii bayna eegaysay intaasoo kaliya bal ku eeg kala dambayntii dowladnimada walaalayaal waa shacbiga reer togdheer iyo reer beledweyne halka daararkeedu baa lagu baaqayaa oo halkan marar badanna lagaga soo celiyey oo ah muwaadin kasta oo jooga gobolka togdheer iyo gobolka maroodijeex inaanu ka baaqan oo uu qaato kaadhkii isku diiwaangeliyey si uu u helo xuquuqda ah inuu doorto codkaad maanta bixinaysaa waa inuu wax ka taraa ictiraafka somalilan waayo markaad codaynaysa qaran baad codaynaysaa qarankaagana inan qayrkaaya oo muqdisho jooga ayaa kule anigaan ku ogolaynoo anaad hoos timaada codkaagu waa in muujiyaa inaad tahay dad tashaday dalkiisa maamusha difaacanaya codkooda aanina uga habranayn muwaadiniintayda ninna ma maali karo hashiisa haddaanu hadhuugu sidan qofka maanta xuquuqdiisa lumiya kaadh qaadashada waa sidaasoo kale haddii ilaahay yidhaahdo markaa waxaan aad u boorrinaynaa aad u soo dhowaynaynaa in kaadhka la qaato anoo ku hadlaya runtii magaca ururada bulshada somalilan aad iyo aad baan u hambalyaynayaa komishinka doorashooyinka qaranka tallaabada labaad ee ay qaadeen ee ah qaybinta kaarka codbixiyaasha وعبد السلام أحمد يوسف ساب تي في مقالة برع